الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan la joognaa gabadh Soomaaliyeed oo yar oo 8 jir ah oo gabadha fiiriya gabadha waxa ku yaala la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah. gabadh Soomaaliyeed baan la joognaa oo aad u silacsan oo Ilaahay subhanahu gabadha fiiriya afkeedii ciridkiisaas u yahay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. gabadhaas aan la joognaa waa gabadh Soomaaliyeed kaar male guri ma haysato gogol ma haysato gooshan ay ku fadhida iyadu ma laha meel la seexiya ma leh wax la siiya ma leh ma hadli karto gabadh hadli karta ma aha gabadhan xaaladeedu aad bay u liidataa intaan ruux muslim oo dhibaataysan arkayay waa gabadha iigu dhibadnayd oo xaaladeedu ugu liidatay lisaanu xaal waxay leedahay waryaa islaama waryaa Soomaali ah waryaa muslima waryaa dhakhtar geeya waryaa caawiya waryaa iga naxa walaalayaalow gabdhaha Soomaaliyeed qalbiga jilicsan culimada diinka wiilasha dhalinyarada duqeytida waxaan leeyahay walaalayaal bal fiiriya gabadhan nin walba waxaad eegtaa gabadha inay gabadhaadi maanta tahay seed noqon lahaydeen haday ilmahaagi tahay ama ay walaasha tahay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. nabigu wuxuu yiri muslimiintu jacaylka ay soo qabanayay saawintooda kama thali jasadin waahid way waxaan codsanaynaa muslimiinta Soomaaliyeed meel ay joogaan ba caalamka meel ay joogaan ba gabadha in dhakhtar la geeyo guri loo dhiso gogol la siiyo nolosheeda wax laga bedelo gabadhaas inay caafimaad lala beegsado kharashkii lagu dhaqali lahaa ee wax laga qaban lahaa in loo soo diro in walaalayaal gabadha caawisaan dhakhtar geysaan naga farxisaan waan ooyneena naga farxisaan oo gabadhaas aan aragna berrito ayadii oo afkeeda ku hadlayso ilkeeda wax ku cunaysa oo ciridkeedii hagaagsan yahay ma dhowri kari aniga xaaladan waxa la runtii aad qalbi xanuun u leh waxaan ka codsanaynaa si naxariis leh muslimiinta Soomaaliyeed inay gabadha wadan qadaan waxaadna ogaataan nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وعود نبينا صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هذا إيمان يا إسلام ما إنه وجرته أينو جواد دكتور جين أو إنه جواد أوجر منه أو جواد ظروف تذي نبقى هيستوى جدا لا حول ولا قوة إلا بالله وحنا مسلمين الصومالية ذو ورب الجواد لنا حريصات كوي بل فيري بالله عليكم gabadhaasi waxay u baahan tahay dhakhtar in la geeyo gabadha waxay u baahan tahay in loo gurmado gabadha waxay u baahan tahay inaan u naxariisano ilaahay idin naxariisto nin kasta oo gabadha u soo naxariista waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa siiyo aakhiri adduunba u guuleeyo jannatul firdaws oo ka waraabiyo gabadha anay daris la tahay muddo 5 bilood waa kaar la'aan reerkee dul saaran reer qaraaban waxba haysanin muslimka waxa laga soo aruuray wax kale oo haystaan ma laha sida arkaysan ba weeg tahay waxa waa ciridkeeda afkeeda waa ka gabadh aad ba u leedahay waxa ma haysato muslimiinta dal idood waxay joogan haday joogan waxaan ka codsanay qofka muslimka maskiinta ilwaada inay soo gargaaraan gabadhan hawar yaran u yahaa walaashiya dhashay waa dhameete daawo ma u hayn isbitaalna kharash aan ku geeyna ma hayn farmashiin kharash aan ku geeyna ma hayn wax alaal wixii oo nool kaalmay korona man muslim ahagnaha adan kan man walaalaha yaho muslimiin ahad tahiin wax alaal wixii ku kaalmay kortiin u baahna kaalmaan rabna dul saaray taha kaar ma qabto boon ma qabto wax alaal wixii lu tar lahaa ya loo baahanyaa